أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan walaalaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee ku xidhan channelkeena Fatima Muna Channel aad baan idin soo wada dhaweynaya. halkan waxaan idinku soo gudbinayaa qisad runtii u baahan fiirsasho dheeraad ah si ay u fahantaan qofka faldambiyeedkan sameeyay. haddaba qisadani waxay inoo kaxaynaysaa halka iyo dalka Suudaan. qisadani waxay ku saabsan tahay amba ay ku dhacday gabadh xaajiyad weyn ah oo magaceeda la yiraahdo Fatima. Fatima waxay ahayd xaajiyad da-weyn, maamo weyn bay ahayd. waxaanay ahayd gabadh iibisa waxaan loo yaqaano hay wareerinin amba alaabta maaragtay guryaha lagu iibiyo. gurigeeday ku iibin jirtay oo guryaha dadkana way ugu qaadi jirtay alaabta iibinayso. alaabtaasi oo ka koobnayd dharka iyo welibana wiciyada amba alaabta guryaha maaragtay weelasha guryaha oo waxyaabahaas oo kale ayay iibin jirtay. kadibna waxay sameyn jirtay guryaha iyo kula wareegi jirtay xaafadda ay deganayd oo ay ka iibin jirtay. dad badan baa yaqaanay xaajiyadaasi Fatima. xaajiyadaasi markaa الدلالية فاطمة الدلالية أيو بحيين dadka Suudaantii magacaasi oo ah markaasi yani haywareerinin amba waxaan ay iibinayso ayay markaa ugu magacaabeen. الحاجة فاطمة الدلالية waxay markaa iibin jirtay alaabtaas iyadoo markaa guryaha dadka kula wareegaysa. xaafadda ay deganayd waxaa la oran jiray xay thawra, wuxuu ku yaalay magaalada Darmaan ee Suudaan ku taala. الحاجة فاطمة waxay sameyn jirtay waxyaabo runtii dadku way u baahnayeen. waxay ahayd bala loo baahan yahay sababtoo ah waxyaabahan ay iibinayso dadku way u baahnayeen, laakiin saasay tahayna dadku iyada shakhsi ahaanteeda aad uma jeclayn. sababtoo ah waxa ay sameyn jirtay qofkii baahan ee xaafadda maaragtay dadka ay alaabta ka iibiso. dad badan bacdamaaba ay taqaanay qofkii dhibaataysan markaasi oo lacag u baahan ayaa ay amaahin jirtay lacag. ha yeeshee lacagta markay amaahayso waraaqo ayay ka saxiixi jirtay nootaayo oo kale ah. waraaqaha markay ka saxiixdo waxay ku qori jirtay qiimihii ay amaahaysay lacag ka badan. tusaale hadday 100 ay amaahaysay matalanba 100 gini oo maaragtay si lacagta Suudaan ee tusaale ahaan yani hadday amaahaysay waxay ku dari jirtay matalanba 20 oo kale. matalan 120 bay ku qori jirtay iyadoo 100 kaliya qofkan siisay. lacagtaas marka 20 ka ziyaadadii de waa ribo weeyaan. marka lagu yiraahdo xaajiyad baa tahay magacaaga yani mala xajkaba may tagin, laakiin de qof weyn ixtiraam baa loogu yiraahdo kelmadda xaajiyad. marka lagu oran jiray xaajiyad weyn baa tahay lacagtan waa riba aad saaranaysaa deynta intaad qofka deynisay kaliya ka qaaday lacagtan kale ha saaran. lacagtan waa xaaraan oo waa riba. waxay oran jirtay maya lacagtayda haddii aan intaad adigu igala maqan tahay aan ganacsi gelin lahaa faa'iido ayaan maaragtay ku heli lahaa. marka faa'iidadaas ma saaranaya xaaraanna maaha waxaasay oran jirtay. dabcan waa xaaraan waana ku khaldanayd. iyadana xaaraantaas way ka daba iman doontaa oo wax arrin aad iyo aad u fool xun ayaa ku dhici doonta qisadan ila socda. على حال gabadhaasi markay dadka sidaa u deymiso lacagta waxa kale sameyn jirtay alaabtan iibinaysa laftigeeda way ka deysan jireen dadku oo marka ay awoodaan bay lacagta ay siin jireen amba u yaryareen jireen lacagta. marka buug ayay ku qori jirtay qof walba waxa uu ka deynsaday, kii lacag kaasha ka deynsaday iyo kii alaab ahaan maaragtay kaga qaatay deyntaba. wax buugaag ay ugu qornaan jireen oo aad bay u nidaamsanayd maaragtay shaqadeedu waxeedii oo dhami waraaqo iyo maaragtay buugaag gaar ah ay calishaan ay ku qoran jirtay. الحاجة فاطمة waxay lahayd gabadh kaliya ay haysatay. gabadheeda waxa la oran jiray Thanaa. ina weyno maaragtay gashaanti amba maaragtay gabadh waqtigaas maaragtay dhalinyaro ay ahayd. way shaqayn jirtay oo meel bay ka shaqayn jirtay xafiis dawladeed oo kale ayaa ka shaqayn jirtay amba shirkad. inantaasi waxa ay subaxdii bixi jirtay goor hore waxaana shaqadeeda ka soo ruuxi jirtay ilaa 3 galabnimo. waxa inantaasi ay isu doonanaayeen ninka ay isu doonanaayeen dhalinyarada ah ayaa maaragtay khutuubada waxa loo yaqaano amba labada qof markay isu doonan yihiin guurka ay qabanayeen gabadha reerkeedu ay ninka siiyeen oo kale ayaa maaragtay nin baa la siiyay oo ay sugaysay inay maaragtay ay isu soo diyaar garoobaan maaragtay sidii loo aqal geyn lahaa oo arooskii iyo hawshiisii ayaa maaragtay hawshaasi ayaa lagu jiray amba la sugayay inuu ninkii usoo diyaar garoobo.
haddaba halkan waxaa ka dhici doonta faldambiyeed ayaa dhici doona dil ah. faldambiyeedkaasina sida uu dhacay waxay ahayd maalin maalmaha ka mida ayaa ay Thanaa soo rawaxday maaragtay waqti 3 galabnimo soo rawaxi jirtay. waxay timi gurigeedii, waxay ka yaabtay albaabkii guriga oo furan. haddaba intaanan idin soo sheeko dhaafin, hooyada xaaja Fatima iyo inanteeda Thanaa waxa la noolaa oo saddexayn jiray ay ayaa la noolaa, magaciisa Cantar la oran jiray. aygaasi waxa uu ahaa markaasi ay hooyadu ay u arki jirtay inuu ilaaliyo u yahay oo ilaaliyo bacdamaaba yani ma garanaysa odaygoodii uu ka geeriyooday oo maaragtay aabihii reerku uu geeriyooday. aygaasi ayay weheshan jireen oo is oran jireen aygaasi maaragtay tuugta iyo maaragtay cid walba xun oo dhibaato idinla rabta bacdamaaba laba dumar kaliya tihiin waa uu idinka ilaalin, waa la idinkaga baqan. marka aygaasi ayaa la noolaa. haddaba maalinta arrintani dhici doonto inanta Thanaa guriga ayay timi, waxay aragtay gurigii oo albaabkiisii ballaqan yahay. way ka yaabtay, way soo gashay gurigii. markay soo gashay waxay aragtay hooyadeed oo qol ka mida qolalkii gurigooda labadii lugoodna xarig laysugu xidhay, labadii gamcoodna xarig laysugu xidhay, isla xarigaasna qayb ka mida oo kale cunaha uu kaga xidhan yahay, oo markaasi wejigeediina buluug uu noqday oo maaragtay qof naqaskii lagu celiyay oo kale oo la ciijiyay. xarigaas maaragtay cunaha lagaga xidhay, naqaskii lagu celiyay ayaa ay u muuqatay, manayna dhaqdhaqaaqahayn oo sidii qof geeriyooday ayay markaa ay ahayd xaajiya Faadimo. halkii bay qayla ka qabsatay inantii, way carcarartay. jaarkii oo dhan bay isugu yimi meeshii, dad aad iyo aad u fara badan oo maaragtay xaafadii dhammayd ayaa yimi. mar dambe ayaa booliiskii yimaadeen oo maaragtay booliiskii loo yeedhay. hayeeshee booliiskii markay yimaadeen, gurigoodu inkasta oo dhulkiisu ahaa dhul iska ciid ah oo mu ahayn dhul ma garanaysaa sibidh amba leh maaragtay marmar, laakiin haddana ciiddii bacdamaaba xaafadii oo dhami ee gurigii soo gashay, raadkii qofkii faldambiyeedkan sameeyey ayaa la waayay. waayo inantii markay qaylisay xaafadii oo dhan baa gurigii timi. marka de boqolaal raadiyaa ka dhex heli kara ninkii dambiilaha ahaa amba qofkii dambiilaha ahaa ee faldambiyeedkan geystay. taasi markaa waxay sababtay inuu booliiskii si gaar ay u wareystaan inantii. waxaa lagu yidhi hooyada ayaad u malaynaysa inay dishay, inuu dilay. hooyada ayaa dilay. waxay tidhi ma garan karo anigu, iyadoo sidan aan u imi garan maayo. waxaa lagu yidhi hooyada ayaad uga shakisan tahay, dadkaad ka shakisan tahay amba dadkii ay lacagta ay ku lahayd. waxay sheegtay hooyadeed marka inay dadka deymin jirtay lacag, inay lacag ribaa saaran jirtay, in alaab ahaan xataa deyn dad badan ay maaragtay ku lahaayeen. waxay run ahaantii xaafaduna ku ogeyd inay hooyadeed ahayd gabadh dabeecad kulul oo weliba aada u qaylo badan. qofku marka uu lacagtii laga rabay uu bixin waayo, qof ka sugto oo u samirta may ahayn dadka. waxay ahayd islaan aada iyo aada u hadal kulul oo maaragtay dadku ay dhibsadaan hadalkeeda, oo aada u qaanabaad kulul oo dadka maaragtay ku gilgisho macanshi ku dhibaataysa maxaad lacagteedii usoo celin weyday. marka waxay tidhi inay dadkaas hooyaday dhibsadeen waa laga yaabaa. calaayi xaal dadkii waxaa lagu yidhi intee baad u malaynaysaa, imise qof baad u malaynaysaa intay aad ka shakisan tahay, liis noogu qor. waxay inantii u sheegtay askartii ilaa 9 ruux oo hooyadeed ay lacag ku lahayd, welibana ay istiri waa kuwii hooyaday dhibsaday ayay ka mid yihiin. 9kii qof ee ay qorqortay waxa weeyaan booliiskii way warwareysteen. saacadii faldambiyeedkani dhacay, dadkaasi halkii ay joogeen ayaa la wareystay oo qof walba gooni loo wareysto oo la weydiiyey xageed joogtay xilligaas. marka dad ayaa laga saaray 9kii oo markhaati helay oo anagu nala joogay amba meeshii uu matalanba qofkan hadduu meel ka shaqeeyo meeshuu ka shaqeynayay يعني لو مرخاتي فري أنا جو حلقة قف كنين لا تشوجي وقت قاصد أنا جو يا أركيني نجمو أكتجين هدي لا يراه قفك أو مرخاتيال وهلا وحويا مركاسي وحل أوجاني يسقو إنا صورة كراهين ماشي أنتو قبدين معرت الدلي حاجة ده الدلي جورجين أنتو بتجي والدلي إنا صورة كنا قلنا قفكن مرخاتي جهيستا لكن dadkii kale ayaa qaar ka soo baxeen oo booliisku ka shakisana haddaba intaynaan u gudagelin dadkaas booliisku ka shakiyay inanta xaajiyadan dhimatay inanteedu ay u soo qortay booliiska ay tiri dadkaas si gaar ah maaragtay
ayaan uga shakisana intaydaan dadka u gudagelin. dhakhtarkii marka uu baaray dabcan dhakhtar gaar ah oo tabiib sharci la yidhaa ayaa ku takhasusay dadka geeriyooda in ay baaraan oo ay baaraan weliba faldambiyeedkan qofkani sababta uu u geeriyooday, xilliga uu geeriyooday iyo waxa maaragtay sababay geerida iyo maxay ahayd waxyaabaha ku saabsan geerida qofkaasi ayaa dhakhtarkaasi uu meydka baaraa oo uu soo saaraa taqriir amba uu report ka soo saaraa warbixin ah. haddaba dhakhtarkaasi waxa uu sheegay alxaaja Fatima in ay u geeriyootay in bud amba qori weyn oo culus madaxa lagaga dhuftay oo taasi sabab u noqotay in ay suuxdo oo ay miyir doonsato. marka ay suuxdayna qofkii falkaas u geystay in uu cunihii qabtay oo taasina cunaqabitaankaasi uu sabab u noqday in ay geeriyooto. sidoo kale in markaa gamcihii iyo lugihii markii la xidhxidhayay ayna iyadu wax isdifaaca ayna sameynaynin isdifaac ahayn oo ay ahayd qof markaasi geeriyooday amba ugu yaraan markaa suuxsanaa kadibna cunaha la qabtay oo markaa sida ay ku geeriyootay. kadib waxaa markii ugu horeysay booliisku ay baareen bal gabadhan in lacag yow iyo guriga u yaalay, dahab ayaa u yaalay. qofkan uu faldambiyeedka sameeyey matuug buu ahaa oo waxa uu rabay in uu xado guriga. markii booliisku khasnadeedii iyo alaabtii guriga taalay ay eegeen waxaa laga waayay meesha lacag aada u tiro yar, isla mar ahaantaana lacag badan ayaa taalay oo khasnada ku jirtay. sidoo kalena dahab ay leedahay ayaa yaalay oo isaguna khasnada ku jiray. waxaasoo dhan ninkii tuuga ahaa amba qofkii tuuga ahaa waxaasoo dhan muu raadinin, wuu ka tegay. haddaba dadkii laga shakiyey sida gaarka ah loo wareystay waxa ugu horeeyay nin la yiraahdo Cabdalla. Cabdalle waxa uu lahaa dukaan yar oo dukaamadan xaafadaha ku dhex yaala ah. Cabdalle markaa waxa uu ahaa qof kamida dadkan ay lacagta ku lahayd xaajiyadaasi geeriyootay ee la dilay xaaja Fatima. sidaan soo sheegayba dukaan yar oo dukaamada xaafadaha ayuu lahaa. guriga xaajiyadaas la dilay ayaa uu u dhawaa dukaankiisu, isla mar ahaantana dayn badan ayaa ay ku lahayd. maalintii faldambiyeedkani dhacay dukaankiisu wuu xidhnaa. taasi shaki ayay keentay oo askartii si gaar ah Cabdalla uga shakiday bacdimaaba uu dukaankiisu furi jiray maalmaha 7 cisho ee wiiga ahba uu furnaan jiray, laakiin maxaa maalintaa loo xiray? taas ayaa isweydiin mudatay. kadibna waxaa la weydiiyey ninkaas Cabdalla oo markii askartu ay soo qabatay waxaa la weydiiyey sababta uu dukaankiisu u xidhnaa iyo meesha uu joogay xilligii loo maleynayay in ay faldambiyeedkani dhacay oo xaaja Fatima la dilay. waxay ahayd barqadii ilaa 11kii ayaa dhakhtarkii jirkeeda baaray maaragtay uu ku qiyaasay inay waqtigaasi geeriyootay. haddaba waxaa lagu yidhi xageed waqtigaa joogtay? Cabdalla wuxuu yidhi anigu maalintii ka horeysay ayaaban baxay tuulo kale oo dad aan qaraabanahay geeri ku dhacday ayaan ugu tegay inaan soo tacsiyadeeyo. kadibna waxaan baxay oo halkaan kasii tegay habeen ayaan ayaga la seexday. kadibna waan baxay oo waxaan tegay tuuladii asalkaygu maaragtay reerkaygu ay kasoo jeedeen oo aan familygayga soo booqday. kadibna waan soo noqday. marka waxa uu halkaasi lagu yidhi waayahay haddii arrintaada saad u sheegtay ay run tahay waxa la wareysanayaa maaragtay waqtigii aad baxday. marka waa la weydiiyey dadkii ninkii baska waday ayaa la weydiiyey. wuxuu sheegay ninkani inuu soo raacay 11kii kadib maaragtay isla maalintan ay gabadhan dhimatay dooradii in uu raacay maaragtay oo waqtigaas uu safray tuulada uu yiri taasi ayaan u tagay. isaguna wuxuu sheegay habeenkii ka horeysay habeenkii dilka ay inuu baxay. halkaas waxa uu Cabdalle noqday nin been sheegay oo xilligaas faldambiyeedkani dhacay meel ku maqnaan cidi ogeyn. marka waa la xiray oo waxa lagu yiri intaanu dadka kale wareysanayno adigu noo xidhnow. qofkii labaad ee ku xigay dadkii laga shakiyayna wuxuu ahaa Maxamuud. waxa uu ka shaqayn jiray shirkad kamida shirkadaha. waxa uu ahaa shaqaale xafiis ka shaqeeya laakiin dhaqaale aad iyo aad u yar ayuu u qaadan jiray. waxa uu lahaa xaas iyo hal ilmo ayuu lahaa, ilmo kaliya hal wiil ayuu lahaa. wiilkiisu waxa uu ku dhacay xanuunkaasi waxa uu sababi jiray amba sabab u ahaa in ay reerkaasi dhaqaale u waayaan daaweynta inankoodaasi kaliga ah
waxay markaa dhakhtarada ay gen jireen kharash badan uu kaga bixi jiray amba la weydiin jiray kharash badan oo aysan markaasi haysan bacdamaaba mushahar yar oo daciifa uu ninkani qaato taasi waxay ku kaliftay qoyskan in ay markaa maxamuud iyo xaaskiisuba ay lacag ka deynsadaan xaaja Faatma oo markaasi xaajiyadaasi ay ka qaataan lacag oo iyadiina ay waraaqo ka saxeexato nootayooyina lacagtii oo markaasi faa'iidadii ribada saaratay sidoo kalena inay rahan usii qaadato alaabtii gurigooda wax walba ilaa daahiyadii gogashii sariiraha waxyaabo badan ayay qaadatay weelashoodii qayb kamida wax badan oo maaragtay alaabtii gurigooda ayay rahan u qaadatay sidaasayna sameyn jirtay oo qol kamida gurigeeda ayaa ay ku guri jirtay xaafada alaabtoodii marka ay dadka deymiso ay lacagta ay waxay kasii qaadan jirtay alaab ay rahan ahaan u qaadato haddaba mashaakil badan ayaa dhex martay reerkaasi reer maxamuud iyo weliba xaaja Faatma islaantan maaragtay la dilay sababtoo ah waxa ay mar walba isku leyn jireen xilligii lacagtan la yaryareynayay maaragtay waqtiyo kala duwan bay oran jirtay lacagta soo yaryareeya oo soo bixiya marka marar badan baa waqtigii la iman jiray iyadoo ayna lacagtii qoyskani aysan haysanin bacdamaaba inankooda yar ay lacag badan daaweyntiisa ay ku bixiyaan taasina waxay keeni jirtay inay ku qayliso gabadhan la dilay oo ay aada iyo aada maaragtay isugu xanaaqaan taasina waxa ay sabab u noqotay sababta ninkaasi isaga laftigiisu uu ka mid noqday dadkii laga shakiyay hayeeshee markii booliisku wareystay wuxuu yidhi war aniga waxaan maaragtay ka ogahay faldambiyeedkana ma jirto aniguna waxba maan samaynin waxaanan ahay nin shaqadiisii ku jiray xilligan ay gabadha la dilay haddii aad rabtaan waxa wareysataan dadkii aan la shaqeynayay shirkadeeda ka shaqeynayay shaqaalihii shirkadiisa ayaa la wareystay waxay sheegeen ninkani inuu sidii caadadeed usoo shaqo tagay oo shaqadiisa uu joogay xilligan faldambiyeedkani uu dhacay laakiin waxay yidhahdeen isla mar ahaantaana 100% hubno dee inuu yaro baxay oo uu shaqada ka yaro baxay oo haddana soo noqday iyo in kale laakiin ninkaas inuu maalintaas soo shaqo tagay oo uu shaqeeyay ayaanu ku idin hubnaa laakiin 100% saacad walba dee qof eegaya hubsaday inuu maaragtay maalintii oo dhan uu meesha wada joogay cidimo oga taasina weli shakigii booliisku uu ku lahaa amba uu ka qaaday maxamuud ayaa meeshii markaas sidii ugu jiray shakigii taasi waxay keentay maxamuud in isagana la xiro isaga laftigiisa haddaba qof kale oo saddexaad ayaa isagana laga shakiyay qofkaasina waxa uu ahaa maxamed haddaba maxamed waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo ay dhaleen reer kamid ah reeraha jaarka ay ahaayeen gabadhaas la dilay xaaja Faatma maxamed waxa uu markii askartu ay qabatay askarta hore loogu sheegay amba loo sheegay inuu hadda ka hor isku dayay alxaaja Faatma gurigeeda inuu usoo dhaco oo sidii tuug oo kale amba tuug ahaan uu maaragtay uu u xado gurigaasi laakiin bacdamaaba ay haysadeen aygii inuu ku qayliyay oo markii ay aygu ku qayliyay la qabtay isagoo markaa guriga usoo dhacaya oo jaarkii iyo dadkii oo dhan isugu soo baxeen reerkii guriga lahaana ay joogeen marka xaaja Faatma iyo gabadheeda ay joogeen oo markaasi inankii la qabtay isagoo markaa waxba xadin kadibna in ay ku qanciyeen reerihii jaarku bacdamaaba inanka la garanayo in ay iska cafiso oo ayna booliis iyo waxba toona ayna ugu yeedhin kadibna halkaasi ayaa arintaasi ku dhamaatay marka bacdamaaba wiilkani uu ahaa qof hore isku dayay in uu reerkan usoo dhaco oo uu xado waxa uu kamid ahaa dadkii laga shakiyay sababtaasi ayuu booliisku isagana u wareystay inankaas wuxuu sheegay markaa inaanu isagu shaqo ku lahayn dilka xaaja Faatma wuxuu yidhi xitaa markhaatiyaal baan haystaa xilliga ay faldambiyeedkani dhacay waxaa la fadhiyay asxaabtayda gurigayga ayaan wada fadhinay waxaanu ciyaaraynay turub ayaanu ciyaaraynay marka anigu shaqo kuma lihi dilkaasi ayuu uu yidhi asxaabtiisiina way u markhaati fureen hayeeshee markii qolkiisii la baaray lacag fara badan ayaa laga helay kadibna lacagtii waa uu inankii wuxuu yidhi anigu lacagtan maaha xaaja Faatma kamaan keenin laakiin lacagtan meel kale ayaa aan ka keenay meeshii uu ka keenayna wuu diiday inuu sheego marka sababtaas uu noqday isaguna qof kale oo laga shakisan yahay intaas kaliya kuma ekaanin wareysiyadii booliisku waxaa kale ee la wareystay nin la yidhaha
cumar waxa uu ahaa khatiibkii amba ninkii ay isu doonanaayeen gabadha la dilay amba xaajiyada la dilay alxaaja Fatima inanteedii kaliya hay haysatay waxa la yiraahdaa Thanaa. inantaa Thanaa cumar ayay isu doonanaayeen oo ay isguursan rabeen. kadibna waxa isagii markii la wareystay waxa uu yiri anigu waxaan tagay sidii caadada ii ahayd maaragtay shaqadayda. markaan shaqadaydii kasoo baxayna waxaan shaqadeedii kasoo doonay baabuurka kusoo qaaday inantii aan isu doonanayn ee Thanaa. sidii caadada ii ahayd ayaan usoo kaxeeyey oo aan gurigeeda aan keenay oo aan soo dhaweeyey. kadib markaan gurigeedii keenay ayaan ka tegay albaabkii markaan hordhigay. kadib galabnimadii ila soo hadashay inantu aan isu doonanahay ee Thanaa oo ay ii sheegtay in hooyadeed la dilay oo dhibaatada dhacday ay markaasi ayuun baan ogaaday. shaqadaydiina waan joogay oo maaragtay waa la wareysan karaa meesha shaqadayda anigu absolutely shaqa maan ku lahayn maaragtay xaajiyada la dilay sodohday bay ahayd anigana wax dhibaato ihi nagamay dhaxaynin. booliiska intaa kuma ekaan waxa kale uu wareystay ninkii ganacsatada ahaa ee lahaa dukaanka weyn ee jumladlaha ee ay xaaja Fatima kasoo qaadan jirtay bidaacada ay iibiso. ninkii waxa uu sheegay inaanu shaqo ku lahayn dilka gabadhaasi inuusan maalintaasna ka bixin dukaankiisa oo mar walba uu joogay dukaankiisii oo halkaasi uu ku haystay shaqaalihiisii oo u markhaati furaya in uu mar walba uu halkaa uu joogay maalintaas oo dhan oo aanu shaqo ku lahayn. waxa kale ee uu sheegay in ay xaaja Fatima in ay ka iibsan jirtay alaab muddo 18 sanadood oo dukaankiisa ay ku xidhnayd oo maaragtay jumlada ay ka qaadan jirtay dukaankiisa wax wanaag ah mooyaane weligiina wax xumaana inaanu ka arkin oo ay maaragtay xiriirkoodu aad u fiicnaa. sidoo kale waxa uu ugu sii daray askarta in uu waliba wuxuu yiri inaan adeer u ahay oo walaalkay dhalay ayaa rabay in uu guursado alxaaja Fatima inanteeda Thanaa oo waanu u fadhiisanay oo maaragtay inantaasi ayaanu rabnay in nala siiyo. laakiin markaanu gurigeeda tagnay xaaja Fatima waxa ay noo sheegtay in gabadheedu ay doonan tahay oo nin ay isguursanayaan oo la siiyay nin kale. marka waa ninka cumar ay isu doonanaayeen inanta maaragtay ay rabeen inay isguursadaan amba khutuubadooda ay jirtay xilligaas maaragtay qabanqaabadii arooskooda lagu jiray. marka waxay sheegtay inanteeda inay bixisay oo ninkaasi ay hore u siisay laakiin wax dhibaato ayna jirin oo markay arrinta ogaadeen ay iska tageen. kadib waxa lagu yiri wiilka aad adeerka u tahay inanta u fadhiistay rabay inuu guursado nasiix xiriirkiisa inankii ayaa booliiska u siiyay informationkiisii amba warbixintiisii. booliiskii baa u yeeray ninkii waxa uu noqday nin dhalinyaro ah oo dhowr iyo 20 jir ah. aabihiina uga tagay hanti badan oo aabihii geeriyooday dukaamo dhowr ah leh oo markaa waa la wareystay. wuxuu yiri anigu adeerkay aniga oo dukaankiisa ku booqanaya maalmaha kamida in gaar ahaan aniga oo waliba leh buu yiri dukaan u dhow dukaanka adeerkay ayaa wuxuu yiri ma aan arkay Thanaa oo hooyadeed la socota oo markaa dukaanka adeerkay ay joogaan oo alaab ka iibsanayaan. kadib inanta ayaan ka helay way la qurux badnayd waxaan rabay inaan u fadhiisto inantaasi oo aan guursado sababtaasaan adeerkay ugu sheegay. adeerkay markuu ii raacay aan gurigii xaaja Fatima tagnay aan inanteedii weydiisanayna waxay noo sheegtay inanteedii inay hadda ka hor bixisay oo ninkaas cumar ay isu doonay yihiin. kadibna arrintii waan iska iloobay wax dhibaato ina may dhicin. halkaasi ayaa arrintaasi ku dhamaatay. aniguna xilligii dambigu uu dhacay amba faldambiyeedkani uu dhacay dukaankaygan joogay shaqaalaha dukaankayga ayaana ii markhaati furay waana u markhaati fureen oo markaas booliisku isaga kama shakiin. hayeeshee baaritaankii booliisku waxa uu sheegay kabarkii qolka ama khasnada lacagtii waxaas meesha ku jiray qolkii lagu dilay xaaja Fatima in laga helay faro 2 qof farahoodii in laga helay. booliiskii markaa 2 qof farahoodii wuxuu u barbardhigay dadkii uu ka shakisanaa waa Cabdalla oo lahaa dukaanka xaafada iyo Maxamuud oo markaasi isaga iyo xaaskiisa lacagta ay ka deynsanayeen wiilka yar ay xanuunsanaya lahaa iyo Maxamed wiilkii tuuga ahaa ee maaragtay jaarku ay dhaleen hadda ka hor isku dayeen xaafada xaaja Fatima u dhaco. marka raggaas oo dhan waa laga waayay farahaasi waxay noqon waayeen farihii raggaasi markii la isu barbardhigay farihii laga helay kabarka. markii la weydiiyay Cabdalla oo markaa booliiska u xidhnaa waa ninkii dukaanka yar lahaay
lagu yidhi noo sheeg ilow iyo ilow waqtigaas gabadhan la dilay meeshaad joogtay waaye tacsidii aad sheegaysay ma joogin haddii kale faraano helo farahaasi ayaanu maaragtay kugu xidhi doonaa oo run ahaantii faruhuna farihiisi ma ahayn wuu khalkhalay oo meeshii runta ahayd ee uu joogay ayuu sheegay waxa uu yidhi anigu waxaan muddo isqabnay gabadh aan ilmaadeer ruma aanu nahay wuxuu yidhi reerka adeerkayna waa reer kulkulul waanan ka baqanayaa hadday ogaadaan in aan beri dhaweyto ayaa waxa dhacday buu yidhi inaan xaaskayga gabadh kale la guursaday oo isla magaaladanun ayaan gabadh kale ku qabaa markaa wuxuu yidhi markay muddo ay kasoo wareegtaba xaaskayga koobaad ayaa adeertay ah ayaan been u sheegaa waxaan ku idhaahdaa tuule heblaayo waxaa ka jirta tacsi amba aroos kadib halkaasi ayaan uga hoydaa ambaan ula hoydaa reerkayga cusub laakiin wuxuu yidhi hadda mushkilad baa dhacaysa hadday reerkayga ogaadaan waayo ilma adeeraday aad iyo aad baan uga cabsadaa markaa ninkani af libaax buu isgeliyey oo waxaaba looga shakiyey maaragtay faldambiyeed dil ah oo maaragtay halisa oo ciqaabtiisuna ay dil tahay inta uu qarinayay guur uu gabadh ku qabay qudbasireed cabdallah sidaas ayaa lagu sii daayay laakiin yaa dilay haddaba xaaja faatma dilaaliya yaa dilay arrintaasi waxaynu ku ogaan doonaa qeybta labaad waayo qeybtani aad bay u dheeraatay videoga sidaas ayaan ku kala qaybin doonaa insha allah biidni illaahi tacaala khayr iyo barwaaqo badan ayaan idiin rajeynaya waxaan idinkaga tegayaa fi amaan illah astawdactukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icu wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu